Beri waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo ka shaqayn jiray warshad. La taliyihiisii oo oday farsamayaqaan ah ayaa baray inuu qof hadal yar oo hawl badan ahaado, oo aanu marnaba joojin horumarinta xirfadihiisa dhinac kasta oo ka mid ah howlaha warshadda. Ninkii dhalinyarada ahaa sidaa ayuu sameeyey, wuxuuna odaygii ka dhigtay la taliye. 10 sano kadib, odaygii wuxuu noqday howlgab. Ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu noqday farsamayaqaan. Hawshiisiina wuu sii waday isagoo ku dadaalaya sidii wax loo baray. Maalin ayuu booqday la taliyihiisii. Odaygii wuxuu arkay in aanu faraxsanayn oo weydiiyey waxa isaga dhibaya. Ninkii dhalinyarada ahaa wuu tahay oo qalbigiisii wixii ku jiray ayuu ka hadlay. Wuxuu yidhi, waxaan si sax ah u raacayay tilmaamahaaga sanadahan oo dhan, anigoo samayn jiray howlo badan oo kala duwan. Waan iska aamusaa oo diiradda saaraa shaqada. Waan ogahay inaan shaqo fiican ka qabtay warshadda, waxaana bartay dhammaan xirfadaha laga baran karo halkaas. Waxaan fahmin ayaa ah in ragga aan waayo aragnimadeyda ama kartideyda aan lahayn dhammaantood la dalacsiiyey, anigoo weli booskayga taagan oo kaliya samaynaya wax yar oo lacag ah. Maalinkaa tababaraha ii ahayd ee aan tababarka ku jiray, lacagihii aan qaadan jiray ayaan weli qaataa. Odaygii ayaa weydiiyey, ma ku qanacsan tahay inaad noqotay qof lama huraan u ah warshadda? Ninkii dhalinyarada ahaa madaxa ayuu ruxay oo haa ayuu yidhi. Odaygii hore iyo gadaal buu u dhaqaaqay si uu u fekero. Muddo kadib ayuu u soo jeestay ninkii dhalinyarada ahaa. Wuxuu ku yidhi, waa inaad codsataa maalin fasax ah, adigoo isticmaalaya sabab kasta oo aad jeceshahay. Waa waqtigii aad naftaada siin lahayd nasasho. Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa taladaas la yaabay, laakiin in badan markuu fekeray ay macno badan la yeelatay. Wuu u mahadceliyey macalinkiisii. Si degdeg ah ayuu uga baxay si uu u sameeyo codsi fasax ah. Markuu shaqada ku soo noqday maalintii uu fasax qaatay kadib, maareeyuhu wuxuu ugu yeedhay xafiiskiisa si uu ugu sheego in arrimaha warshadda aanay wanaagsanayn inta uu maqan yahay. Shaqaalihii kale waxay la kulmeen dhibaatooyin badan oo sida caadiga ah isaga uu wax ka qaban jiray. Inkastoo uu dalacsiiyey, laakiin way garan waayeen sida loo xaliyo. Isagoo hadda fahmay muhiimadiisa, maareeyuhu wuxuu go'aansaday inuu u dalacsiiyo jagada farsamayaqaan sare oo dhammaan shaqaalaha ay isaga hoos iman doonaan. Maamulihii ayaa ku yidhi, si aan kuugu mahadceliyo, kuguna dhiirigeliyo inaad sii wado shaqada wanaagsan ayaa sidan u sameeyey. Ninkii dhalinyarada ahaa aad buu ugu mahadnaqay fikradda uu siiyey macalinkiisa. Hubaal wuxuu u maleeyey in tani ay tahay sirta guusha. Wixii intaa ka dambeeyey, markastuu dareemayo in uu ninkan dhalinyarada ahi u qalmo wax ka badan wax uu helayo, wuxuu qaadan jiray maalin fasax ah. Markuu soo noqday maalinta xigta, xaaladdu way fiicnaan jirtay oo waa la dalacsiin jiray. Arrinkan wuxuu socday muddo bilo ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii dhalinyarada ahaa isagoo u socday warshadda wuxuu arkay in laga hor istaagay inuu galo warshadda, waxaana loo sheegay in la joojiyey shaqadiisa. Aad iyo aad ayuu uga naxay markuu ogaaday in shaqadiisii laga joojiyey. Wuu rumaysan waayey, ma garanayo wax kale uu sameeyo. Dib ayuu ugu noqday si uu u arko la taliyihiisii, si uu isugu dayo inuu ogaado sida ay wax u qaldameen. Markuu tagay gurigii la taliyihiisa, wuxuu hadal ku bilaabay, maxaan shaqada ku waayey ayuu isagoo aad u xanaaqsan oo niyad jabsan weydiiyey. Miyaanan u samayn wax walba sidaad iigu sheegtay? La taliyihiisii wuxuu ku yidhi, run ahaantii maadan samayn, sababtaa waxaad maqashay oo keliya casharka barkiis. Odaygii ayaa madaxa ruxay oo yidhi, waxaad ogaatay oo fahantay in aanay cidina kor iska saarin oo muhiimad siin nalka had iyo jeer shidan. Waa marka uu xumaado ama damo markay dadka muhiimadiisu ay ogaanayaan oo ay ku farxayaan hawshiisa. Aad ayaad u xiisaynaysay inaad samayso fikradda aan ku siiyey, laakiin waxaad iga tagtay ka hor intaadan maqal qaybta labaad ee casharka. Qaybtii labaad waxa u soo baxday ninkii dhalinyarada ahaa in laga yaabo inuu qalad weyn sameeyey. Maxay ahayd qaybtii labaad ayuu yidhi. La taliyaha ay si tartiib ah u hadlay si fikraddiisa u muujiyo. Wuxuu yidhi, qaybta labaad way ka muhiimsan tahay tii hore. Waa garashada in haddii nalka iftiinkiisa uu si joogto ah u maqnaado, markaa kadib ha dhawaato ama ha dheeraato, waxaa lagu bedeli doonaa mid la isku halayn karo. Qof doonaya nal mar walba dansan oo cidina ku xisaabtami karin iftiinkiisa ma jiro. Ninkii dhalinyarada ahaa markaasi ayuu gartay qaladkiisa. Waxaad ku arkaysaa nolosha, amaba noloshaada ma leedahay saaxiibo iyo xubno qoys oo aad si weyn ugu tiirsan tahay.
had iyo jeer dhinacaaga ayay joogaan. Maxaa dhacaya haddii hal maalin aysan garabkaada joogin? Ha sugin maalintaas oo kale. Saad si lama filaan ah u ogaatid sida ay muhiimka u yihiin. Maanta uga mahadceli wax walba oo ay kuu sameeyeen. U sheeg inaad tahay qof aad u nasiib badan marba hadday dhinacaaga joogaan. Noloshaadan ay ku leeyihiin boos aad u weyn. Ha ogolaan dadka inay ku soo xasuustaan markay kuu baahdaan oo keliya. Ismuuji oo ha arkaan inaad tahay qof muhiim ah oo mar walba loo baahan yahay. Laakiin weligaa ha dayicin yoolkaaga. Hawshaada sii wad, xitaa haddii nolosha aysan u socon sidaad rabto. Dheelitir noloshaada. Maxaa yeelay noloshu waxay abaalguddaa kuwa sida saxda ah uga faa'iidaysta. Ha noqon qof shaqada isku dalshay ilaa heer uu ka iloobo naftiisa iyo qoyskiisa. Ha noqon qof nasiinada iyo raaxada badan doorbidaya ilaa uu hilmaamo yoolkiisa. Ha noqon qof dadkan wax u qabta laakiin aan naftiisa waxba u qabanin. Ha noqon qof dadka iska gooya. Maxaa yeelay nolosha wadajir ayaa lagu dhistaa. Markaad barto sida aad noloshaada u dheelitiri lahayd, noloshu way kuu fududaanaysaa. Waxayna kuu noqonaysaa mid xasiloon, horumar leh, oo farxad badan. Haddaad ka heshay muuqaalka like noo saar. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Ramadaan mubaarak.